صفعة xafladan maanta aynu joogno waa laba xafladood isku jira xaflad koox ka socota Hargeysa oo 9 qof ah iyo Gabiile 14 iyo Boorame 14 waxa loo soo xidhay maanta tababarkii asaasiga basic fire fighting loo jiray oo 9 bilood socday waxayna jooga maanta u xidhi doona 5 ka tirsan Burco oo iyaguna aan u sameynay waxa la capacity building ama leadership hogaaminta oo iyaguna 6 bilood halkan joogay marka kooxo dhamin markayna tababarka ku dhameeyno haddana dib baan u soo celinaa oo nu barnaa maxaa la yiraahdaa cilmigooda sare ugu qaadnaa marka 42 baa maanta qalin jebinaya oo si sagootii doona marka waxaan ku bilownay 2014kii 30 ciidan ku bilownay maanta waxaanu marinaa 338 ayanu marinaa gobolada iyo Hargeysa marka la isku daro annagu ka gol ahaan waxa nagaga beegan waxa weeyaan waa xeerkii ciidanka dabdamiska qaranka annaga gacanta ku haynaa walahana insha Allah waxaan idinku bishaareynaa taliye yaagaasmiba inaanu kala fadhigan imika soo socda marka la soo galo insha Allah billahi kariim aanu xeerkii idin heer qaran aanu xeerkii idin bilaabi doono oo goluhu idin soo saari doono waxaan ugu faraxsanahay maanta inaan halkan isugu nimaadno qalin jabintiina aanu ka qayb qaadano shayga marka la koowaad ee laga shaqeynayo shayga emergency-ga la yiraahdo waxa degdeg ah dabka qura maaha inta hawlado kale qabtaana aad bay u badan yihiin waxa weey waa shaqo adag oo u baahan ilaalin waxa sustainable la yiraahdo waa waajib saaran golayaasha deegaanka oo xeerka gobolada iyo degmooyinka ee aynu ku shaqeynaa ama golayaasha deegaanku ku shaqeeyaan wuu ku waajibinayaa dawladaha hoose iyo golayaasha deegaanka in degmo kasta ay yeelato dabdamis ugu faraxsanahay inaan idin hor imaado oo maanta aan idin soo xidho tababarka muddada 9 bilood aad halkan ku qaadanayseen waa idin mahadnaqaynaa waxaanu idin leenahay wixii aad u barateen ee idinku tababaray dadkiina ugu adeega ummadiina ugu shaqeeya ha seexanina ee ha la idinku seexdo sababtoo weli dabkeen muu fadhiisan